digniin dadka Soomaaliyeed waxa uga digayaa waxaa jiro wax aan maanta la yaabo horta arkay marka hore waa idin tusinaa idin la wadaagaa waxaas u jeedin hilib waay ilaaha idinku dhaarshay weligiin ma aragteen hilib bisil oo la kariyay haddana saas u yaalo haba u yaala ma xumee waxaa idin tusinaa hilibkaas u jeedin fiiri isbuunyo waa mujadin waa suuf waa hilib ya weligaa ma aragtay hilib suuf ah ilaahan ku dhaartay maqaayadan waa ka shakiyay ani ma rabo personal attack inaan sameeyo laakiin maqaayadan Jam Street ku taalaa jibsi masala ka doontay jibsi masalahooda aad u jeclaa 209 up to now ka gataa wallahi العظيم laakiin mar hore waa arkay shakigan waa igalay haddana waxaas dhaaniyo iska dhaadhicin balaayeesu laakiin maanta iigu darneed maanta hilibkan waaba wada suufkaas arkaysiinbo hilib suuf noloshaada ma aragtay suuf waa wallahi العظيم beena umaleynaysin waa kaas isbuunya waana hilib cad guduudka kalarka waxa lagu sameeyay iyo qaabka loo shiilaha fiirin laakiin gudihiis waa hilib cad hilibkan inuu hilib doofaariha uga shakisanaani والله بالله والله هلب كان وحبة أنا كقلدن جبس مسألة كدونتي وكنا جبس مسألة واعنى إلى إداوي وكنا سو هلب كوجرة أودك موجودين وكتجي هلب كوعون واي بقصاص وهذا النقد وابد صوف مركب وحقيقية بيا وحياته ما يابوا إلهي هلب كقرك ولا قد بس مذوية الدنيا وكالا أرجوي هاي جيبسي جود هداري لمسيت مالك لما أديس مكفوقيس لكن هيلب كان صوف كأه محاواية أو هدنا أكرين أو عيرين أو اسكد بتجيد ما أو جوين أو سبوين ده هيلب كأنه هيلب توفاري أملانا مقايد دا سومالي مجو أنا ما أنت كده ملايو أوجو والله جيبسي جود وحدة أنت سوسنوا كده أردا لكن ما أنا كده بس وكشكيا حاسد عني هو